don't know marka Soomaali ragana marka si u fiirina sabab ayaa kaliftay sababtay tahay wuxuu arkay gabadha Mareykan la joogto respect wax la aamusay ani daraad waxaan arkay video lagu soo shaqeeyay wiil oo traagla ah oo Soomaali ah gaarigu wada guys you can't imagine gadaal ma xirin wuu iloobay marka alaabta ka daadanayso marka ani maskaxdayda wax ku soo dhacday waxa waaye stress ka saaran low stress u saarnaan lahayn wiilkan gadaal gaarigiisa ogaan la wax ka dhacay maamisa alaabtii dhana ka dhacday ka halawday which is too late because gaariga alaabta saaran lacag waaye war wala xisaabtamaya marka meesha geysid waxa waaye xisaab by 1 hour by 2 hour or the distance al xisaabniya qaarkood waa distance qaarna gaariga ayaa madaxa ayaga iskale qaarna waa shaqaalo madaxa ayaga iska bale waxa waa dad bay u shaqeeyaan marka wiilkaas stress gabar Soomaali ku riday because hadday xishmeen lahayd amaan siin lahayd markin ku kalsoonaan lahayd oo qofka kalsooniya la siiyaa qofka marka kalsooni siisid wallahi billahi inta soonaa ka qurxbado banaanka ku arko adoo ku soo laabana wuxuu kugu soo laabana waxay tahay kalsoonida atusise laakiin marba hada telefonkiisa fiirisid ama dhahdid ciwaankaaga isii TikTok ama isii ciwaankaaga Facebook ciwaankaaga YouTube control wax qof jecel ma alla ka ma jecmaad inuu control waxa la nimanku weyn cibiin Soomaalida soo maxaa u controlaysa qofka maanta ilaahay calafku uma galin lahaa soo ilaahay maanta loodina isma siin lahaa miyaa is ogeeyna sahli doonto waamay ilaahay baa ku qoray maanta nin traagla ina guursatid ilaahay ku qoray alxamdulillah you need to focus yani noloshaada sa improvement u sameeyay ninka wuxuu jecel yahay gabadha wax soo saar kale adiga maanta markuu ninkan ma ku invest gareeyo oo ma sha Allah markan adiga shaqada jecesha bilawdid wallahi you see the result amasa laakiin anaga Soomaalida ma fikiraan waxay ku fikiraan waxa waaye guri qaari markuu Afrika ay joogto nin traagla qabo waxay degaysaa meel wasiirayaasha degan abaa biri markuu lacag ka jarto maxaa sameyn doontaa xaafadda wasiirayaasha marka degtid biri markuu lacag ka jarto maxaa sameyn doontaa saving ma sameysanin wax ma dhiganin meel wallahi that's true wax ma dhiganin meel wiilka islaameed waxa leedahay doodi ha abul wacel buu ahaa maxay isiin jiray jizaarnimadana ma fiicno jizaar ragga Soomaalida waxay u ordaynaanga carabta waxa waaye naagta carabta waxay taqaantaa waxa waaye wallahi bilaa that's true naagta carabta waxay taqaantaa habiibi danteeda taqaantaa habiibi baby ya albi oh because waxay ogtahay reerkeeda maanta ka soo baxdo there is no way going back maamisa you rather stay hadduu ninkaas nin xun yahay hadduu wanaagsan yahay hindida waa aragtay Soomaali gabadha marbada reerkeeda ka soo baxdo that is it waxa ku dhamaysanaysa guurkaas ilaahay mu ninka dilo waxa way ku dhignaanay xeer waxay gaarsa cirra ka soo baxdo jacayl ninkaas u qabta maahan she wish one day inay ka tagto laakiin fiiriya adi markaa tahay gabar Soomaali ah alxamdulillah wallahi alxamdulillah because xor baa laga dhigay waxa laga dhigay wiilashiina wiilasha ugu naxariista badan markuu wiil Soomaali ku qabano waxa waaye shaqada asaab ku soo shaqeynaya wuxuu ka faanaa lacagta aad asiinaysid ma rabo ninka xayiga Soomaaliga ma ogolo ilaahay ma toon tugan lahayd ma ogolo ka dhimat oo ka dhinta wuxuu ku leeyahay si ani lacagta xaaskay u isticmaala gabar la dhahay cun cab guriga joog xagee laga helaa ajaanibta ma sameeyaan saas fiiriya hadda saaraan siinaya naayahan TikTok ku jiro oo cadaanka qabo badankooda dhageysta gaaladan qabanaya gaalo waxa jiro gaalo qaban waxa maqlaysaa I'm happy with my husband ninka cadaan xalay honey ninka Soomaaliga nooceene ninka Soomaaliga gabadha asmada usal dhahay ninkeed hore Soomaali buu ahaa ninka hadda qaban waa nin gaal ah badankoodana saas waa nin gaal ah qaba ayaga dhan nin muslim ma qabo badankooda saasata ninka gaalka way ku amaanay kii Soomaaligana xumaantiisa dhan ay sheegaysaa waxa laga yaabaa maanta wiilkaas dil soo qabto la wareysto waxay sheegaysaa inuu been noqdo sababta wiilka Soomaaliga ceeb ba u raadinaysa waxa isku dayaysa inaan nacsiinsid gabdhaha Soomaalida wiilasha Soomaalida which is true because gabdho badan waxa arkaysa cadaan u orday cadaanku waxay moodaan dahab
midabkaas lagu kala duwan yahay ma oshiya hadduu dahabnimo ay jirto naxariis jirto waa wiil Soomaali wallahi waa wiil Soomaali unbasa naxariis laga helaa inta kale naxariis ha ka sugin because waxay yaqaanaan ajaanibta 50-50 waxa la xabiibti adigu 50-50 ma awoodaa marka gabar Soomaali tahay culture keena maan 50-50 ilaahay ma aabahiga Mareykan joogo wax ka gala male ninka ani qabo wax ka gala male Soomaali ilaahay mu aabahay maartid milyooniyan u noqdo wax ka gala male diinta ay raacan badankooda wiilasheena Soomaali laakiin wiilasheena waxay helaan naaga xun ah naaga stress ku rido naaga depression ku rido naaga buuq miiran markaas wuxuu u soo ordayaa gabar Afrika joogto because wuxuu ogyahay gabar Afrika joogto inay tahay gabar degan micnaheedu ma aan Afrika hayasina Afrika wallahi dad waxa jiro multi-millionaires Mareykanka dadka joogta jirsan moogtiin taas Afrika dadka ku nool gaajamooda ah dad taajiriin dad faqiiriin dad dhaxaad isku dhaxay ali maanta Mareykanka joogto waxa laga inaan ka nolol fiican maanta ka nolol fiican hay laga yaabo waa adiga de Mareykanka joogto magaca Mareykanka ku joogta ka hada ina ka nolol sareysanahay Soomaa marka gabdhaha Soomaalida ayaga stress ku rideen gabar waxa arkaysaa ninkii kala tageen markay kala tageen xumaantiisa dhan TikTok la imaanay ha wallahi bilaa hada ku soo qarxina wallahi bilaa tala wicilka khaniiska shalay marka lugaha la galeysay wicil muu aha mise malab buu aha gishagde naana qaarkood wallahi TikTok marka ku wareegtay TikTok waa yaabay wax ka socdo waxaas leedahay umadan intee ka soo dhaceen shalay markuu qabay baby macaan baa TikTokna lagu tusinay hadartaan waxay noqotay musalsal nin waxa arkaysaa fiiriya naagtiisa hor inta xumeeyo buu naag TikTok joogto intuu guursado buu naagta hadana kastumadeeda fitad ka sheekeynaya waa dhacda way taasha fiidiyoyaashaas ka sheekay ragga Soomaaliyeed qaar xun qaar wanaagsan oo qaar inta wanaagsan badan inta wanaagsan xalay ukun quruntay hal ukun quruntay waxay qurumisaa dadka ukunta oo dhan cause adiga markii grade oo ukun ay haysatid hal xabo qurun ka artaxmoodaysa iyo azum waxa la ayaga dhan inay qurun yihiin marka maskaxiyan waxa dhan waa qurun way halaaway cause ma halaawna hal xabo halaaway marka ragga Soomaaliyeed qaar wanaagsan laakiin inta wanaagsan Ilaahay wuxuu siiyaa naaga xun Ilaahay ma siiyo naaga wanaagsan naago kalsooni qabo Ilaahay ma siiyo naagta kalsooni daran tahay buu Ilaahay ku aadiyaa insecurity waxa la hayna dadkan oo isku dilaan obsession aan noqonay qofkina nafta dhaafsiinay wallahi nafta dhaafsiinay hada gabar waxa jirtay ajaanib ah oo adi Afrikaan ah iyo wiil cadaan ah oo waxay isku barteen dating site oo garanaysa Soomaaliya shaqaansi ah marka isku barteen wiilku iska jeclaaday way soo jiidatay dabeecaddeeda